kulankan maanta isugu nimi ay soo qaban qaabiyeen komishanka doorashooyinka qaranku ujeedadiisa waa mid kaliya runtii midkaasi waxa weeyaan kaar qaadashadii gobolka saaxil aad iyo aad bay u liidataa sababta runtii aynu kaar ka wada qaadan karnaa ujeedada horta waa inta komishanka qaranka runtii waxaan ugu mahadnaqaynaa in ay kaarkii soo daabaceen gobolkii nagu keeneen goob kasta geeyeen kaarkii sanadkii hore naga noqdeen iyagana runtii ay keeneen taa waxay ku dareen wacyigelin baa socota meel kasta gaadhi baa maraya fariin baa ka baxaysa dhalinyaro rag iyo haween baa saaran tababaran oo codbaahiye isticmaalaya dadkii la hadlaya miyi magaalaba haddana sida ay noo sheegeen oo kaliftana runtii shirkan qaban qaabina wax weeyaan kaar qaadashadii aad iyo aad bay u liidataa goobaha qaar waa laynoo sharixi doonaayo ay 1700 cod yeeleen in shantii cisho u horeysay ay 100 qof qaataan runtii waxay sheegaysaa inay tahay arrin khatarteeda leh haddii saa ku sii socoto waxay noqon doontaa markaa goobtaasi u dhan tahay 80% in kaarkeedu noqdaan insha Allah taala halkii taas u dhici mayso halkan markaan maanta ku tashano waxaanu ku dadaalnaa isla markaan higseena markaa 90% kaarka halkan la keenay saaxil haddayna 100% ba ka dhigayn inaan runtii qaadano marka kaar qaadasho laga hadlayo runtii waxa weeyaan waxna waa barbilow waxna bardhamaad tacabkii faraha badan soo gelinay doorashada oo inagu hadeen reer saaxil nahay cimiladeena runtii aad bay u kulushay berberiyo waliba deegaamada u dhadhow dad baa taraag soo galay halkan joogay dhowr cisho markaa ku jiray queue kaar baynu qaadanay kuwa kalmeen baa dib adana queue gal loo soo qaaday kaarkii baa la soo daawacay xilligii u dambeysay markaa faatixada dhamaadkeedii hadduu qofku kaarka soo doono waayo tacabka hore la soo galay waa khasaare kaarkuna runtii ujeedadiisu waxay inaynu ku doorano de madaxdeena in hogaaminaysa haday xildhibaankeena tahay iyo haday tahay madaxdeena kala qaranka iyo haday ururada tahay haday xisbiyada tahayba haddii maanta aynu kaarka qaadan weyno dee reer berbera iyo reer saaxil dee cabashadu baa sii badan doonta iminka leer baynu ka cabanaynahay birdhow waxay noqon doonta inaynu dee waxyaalo badan oo kale ka cabanaa iman doonta haddii kaarkaa runtii aynu qaadan weyno kaarkaas wixii noo saamaxayay markaa inaynu baahi kasta bulshadu leedahay haday waxbarashada tahay haday caafimaadka tahay haday horumarka tahay haday miisaaniyadda qaranka tahay tii lagu qiimeynayeen marka komishanka runtii uu shaqadoodu ka soo baxeen taynaga inoo tala reesaaxilaanta wax weyn wixii caawasha ama wixii dooda ama wixii caqabad jira qofku halkan buu iman doonaa si xor u sheegi doonaa taas mushkilad ma leh laakiin caqabada iyo in laga hadlo ma garanaysaa dhaliisha waxa ka sii muhiimsan inuu qofku keeno markaa fikir ama xal sababaya inay 100 qof oo deegaankiisa ka soo jeeda ay kaarkii qaataan ama 10 qof ama 20 qof oo xaafadda la degan taa haddaynu sameeyno markaa kaarkii naga wada baxaya laakiin haddaynu soo canaano haddaynu cimilada canaano haddaynu miisaaniyaddeena qaranka canaano haddaynu inagu iscanaano markaa micno badan sameynayso laakiin fikrado iyo runtii waxyaalaha waxay noo taraya halkan inaan ku discuss gareyno aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa runtii cuqaasha iyo haweenka oo shaqo badan muddadii imika ay socotay kaar qaadasho runtii ka qabtay inta laakiin hadhay si aan la tartano deegaanada kale waxa laynooga baahan yahay xaafad baa loo tartamaya marka berbere la joogo marka berbere laga baxana waa deegaan la saddex waxaa tartamaya dee la faruug baa tartamaya la faruug iyo waxaa tartamaya markaa laalays iyo waxaa tartamaya gooda weyn iyo laasciid la tartamaya waxaasna waa deegaanadeena gobolka saaxil waxaynu doonaynaa dhammaantood inay wada qaataan kaarka seeba u qaadan karaan haddayna ana gaadhaha loo baahan yahay haddayna lacag baa loo baahan yahay waxaas waa baahi jirta laakiin taladeedii iyo xalkeedii iyo maskaxdeedii baa laynooga baahan yahay maanta ilaahay baa mahad leh roobkii uu ilaahay noo shubay meel kasta barwaaqa ka jirta abaartii ilaahay naga soo jebiyey miyiga iska joogay maanta isagii baaba dee neef bixin karayo ka qayb qaadan karaya markaa in kaarhka la qaato marka qadiyadaana runtii inaynu fahanno dimuqraadiyaddeena ku dhisan qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland baa ku dhisan nafteena iyo deegaankeena ku dhisan marka kaarka qaadashadiisu waxa weeyaan komishanka siisa ku jirto waa naftaada u hiili muwaadin oo dantaada iyo danta deegaankaaga iyo danta qaranka u hiili aad iyo aad baad mahadsantihiin siyaasiyiintii madaxda halkan joogto dhan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaq